السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعل رمضان الكريم أيها الهودي ذكر لله صاحبة قيمها قدرت إيقاعها اللي قمدلو قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حناني يدين توحوق يسونكو حناني يدين توحوق يسونكو ومالتي شلاد بيش بركيسان رمضان وحالا موقال كيلا مانتا هدي الله ودل ورالك لقدو كغهد لدولا وحيابها لما يا أجر كسونك طبعا وحيابها لما أجر كرمضانكو ويفربديهين موقال كيلا أيالا طبعا كو إيقي دولا waxaan sidoo kale aan isla eegi doonaa oo fiiri doonaa hadalada xun iyo sidoo kale beelta maxay ka dhigan tahay marka la joogo bisha barakeysan ee Ramadaan inkastoo ay soo wanaagsaneen in marka Ramadaan ay leeyahay xataa in marka hadallo xun iyo sidoo kale been iyo dacdaro in marka dadku loo sheego ama dhagaha dadku marka ay maqlaan sidoo kale waxay la eegi doonaa xalta iyo aflagaadada iyo beel abuurku marka qofka oo laga beel abuurta oo kale maxay ka dhigan tahay marka la joogo bisha barakeysan ee Ramadaan sidoo kale waxay la eegi doonaa muranka dagaalka iyo sidoo kale carada faraha badan maxay ka dhigan tahay marka Ramadaanku la joogo oo qofku uu la yimaado isaga oo sooman arimahaas oo kale waxaan eegi doonaa xigmadaha marka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ku aadan marka waxyaabaha dhima ajarka bisha barakeysan ee Ramadaanku gaar ahaan qofka marka sooman qodobadaas ayaa daawadayaal hadduu Allah uu dal raali ka noqdo barnaamijkeena ku faaqidi doonaa maanta oo ah maalintii shalaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan socdaal training company waxaad ka heli kartaa qalabka elektarooniga noocyadiisa kala duwan sida qasaaladaha fariijada noocyadooda kala duwan dhalooyinka TV-yada guryaha mukaafiyada kuukarada noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale haamaha gaaska yar iyo weyn iyo dhammaanba noocyada qalabka elektarooniga ee loo isticmaalo guryaha dhammaan agabyadan kala duwan waxaad ka heli kartaa xarumahooda kala duwan sida xarunta weyn ee ku taala moolka Macallin Biimaalow oo ku yaalo kasoo horjeedka masaajidka Macallin Biimaalow iyo xarumahooda kala duwan ee suuqa Bakaaraha wixii faahfaahin taadeeri ah kala xiriir telefoon lambarada shaashadeeda kaga muuqda mar kale daawadayaal kulan wacan Ramadaan الكريم meel walba aad joogtaan iyo marxalad walba aad lagu daawaleysaan waxaan muuqaalkeena ku eegi doonaa waxyaabaha dhima ajirka maalinta Ramadaan inkastoo soonku sharci ahaan sax yahay haddana waxaa dhici karta in waxyaabaha qaar ama ficilada qaar marka aan sameeyno in marka nusqaan uu ku yimaado ajirka maalintaasi aan ka falaleelay bisha barakeysan ee Ramadaan gaar ahaan maalinta marka ay ku sugan lahay oo dhaqamadan ama caadooyinkan aan la imaano quraanka iyo xadiiska iyo xuduudka ilaahay حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوق يسونكو حناني يدين توحوق يسونكو culimadu waxay cadeeyeen inay jiraan camalo marka alburisoonku balse yareeya ama ka lumin kara ajirkiisa qofkana waa uu sooman yahay sharci ahaan balse ajir la'aan ayuu noqon karaa haddii uu dayaco aadaabta iyo sidoo kale ujeedooyinka marka bisha barakeysan ee Ramadaanku la xiriira waa hagaag hadalada xun iyo beeltu maxay ka dhigan tahay marka la joogo maalin Ramadaan inkastoo maalmaha kale ee Ramadaanka ahaanba aysan wanaagsaneen nabigeena Maxamed la xariisay labadgeli korkiisa ahaatee waxa uu yiri qofkii aan ka tagin hadalada beelta iyo ku dhaqankiisa alla uma baahla inuu ka tago cuntadiisa iyo sidoo kale cabitaankiisa sidaasina waxaa lagu wariyay xadiis marka Bukhari uu wariyay imaam ibn Rajab Allah ka raal noqde waxa uu yiri xadiis kali waxa uu muujinayaa in marka soonka runta ah uu san ku koobleen caloosha oo kaliya soonku waa tarbiyo akhlaaq ee ma aha gaajo oo laga taga oo kaliya
xanta aflagaadada iyo beel abuurku maxay ka dhigan tahay nabigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi alle subxaana wa tacaala ayaa yidhi xantu waa culidda hilibka walaalkaagii dhilta oo kale suuratu alhujuraad aayadda 12 ayuu la rabbi subxaana wa tacaala hadalkaasi ku yidhi alxasan albasri allah ka raali noqdee waxa uu yidhi xantu waa soonka qalbiga dila qalbiga xul waxa uu baabi'iyaa ajarka iyo sidoo kale camalka qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko mural dagaal iyo cara fara badan maxay ka dhigan tahay marka qofka uu sooman yahay nabigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi haddii qofku uu kula murmo ama uu ku caayo adiga oo sooman dheh oo keliya waan soomanahay xadiiskaasina waxaa wariyey bukhaari iyo muslim imaam allawowi allah ka raali noqdee waxa uu yidhi tani waa edeb markaa lagu dhoorayo ajarka soonka sabar la-aantu waxay dhaawacdaa ruuxda soonku indhaxumo iyo sidoo kale dhagaxumo maxay ka dhigan tahay marka la joogo maalin ka mid a maalmaha bisha barakeysan ee ramadaan awshada dhegeysiga ama sidoo kale raacista wax xaaraan ah ibnuqayim allah ka raali noqdee wuxuu yidhi indhuhu waa albaabka qalbiga gala haddii la furo qalbigu wuu dhaawacmaa loola jeedo dabcan haddii waxyaabo xulxul markaa indhuhu aad ku daawato qalbiga ayaa markaa saameyn ay ku yeelanaysaa waana uu dhaawacmi doonaa marka la joogo bisha barakeysan ee ramadaan ama qofku markaa uu sooman yahay kastoo marka uu sooleel xitaa ay xaaraan tahay in markaa indhuhu lagu daawado waxyaabo xun soonku waa mid markaa jireed iyo sidoo kale mid qalbi labaduba qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko yooyinka xul iyo sidoo kale ku mashquulidda waxyaabaha aan faa'iidada iloo laheel maxay ka dhigan tahay marka ramadaanka la joogo waqtiga oo lagu lumiyo hadallo markaa maran ama aan faa'iido laheel ciyaaro fara badan iyo baraha bulshada oo xaddhaaf markaa loo daawado ama markaa lagu mashquulo waxay ka mid tahay waxyaabaha markaa yareeya ama dhimi kara ajirka maalintaasi oo ah markaa maalin ramadaan alimaam alkhazaali allah ka raali noqdee waxa uu yidhi soonka dhabta ahi waa kan markaa waqtigiisii la dhooro waqtiga ramadaanku waa maal luminteeduna waa khasaaro qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko ismuujinta iyo sidoo kale faanka cibaadadu maxay ka dhigan tahay marka bisha barakeysan ee ramadaan la joogo alla subxaana wa tacaala waxa uu yidhi kuwa cibaadada markaa ku muujiya dadka ajar ma laha suuratu almaa-uun aayadda markaa 6 iyo aayadda 7 ayuuna markaa alle subxaana wa tacaala loogu sheegay sidaasi alimaam ibnu teymiya allaha ka raali noqdee waxa uu yidhi ikhlaas la-aantu camal markaa ma noola ajarku waxa uu ku xiran yahay niyadda ee ma aha muuqaalka oo keliya dayaca salaada iyo sidoo kale cibaadooyinka kale maxay ka dhigan tahay marka qofka uu sooman yahay ama maalin ramadaan markaa la joogo qofka sooman balse salaada dayaca muxuu ka dhigan yahay imaam axmed ibnu xambal allah ka raali noqdee wuxa uu yidhi soon aan salaad laheel waa jiri markaa aan ruux laheel oo kale soonku waa qayb ka mida nidaam cibaado keligiisala ma dhammaystirla celinta dembiyadii hore iyadoo la maxay ka dhigan tahay qofka ramadaanka sooma balse dembiyo hore ku laabta ama kale aan la imaan toobad maxay ka dhigan tahay bisha barakeysan ee ramadaan alfudayl ibnu ciyaad allah ka raali noqdee wuxa uu yidhi qofka ramadaan markaa ku galo si uu dembiga uga lasto waa uu khasaaray soonku waa toobad iyo isbeddel ee ma aha
nasasho oo lagala salayo dembiyada oo keliya. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. intaas ayaan ku soo koobaynaa daawadayaal brogaraamkeenii maanta oo ka mid ahaa silsilado muuqaalo ah oo ku bixi doona qaab maqal cod ah, taasi oo aan ugu talagalnay in markaa daawadayaasheennu ay wax badan uga faa'iidaystaan ahmiyadda bisha barakeysan ee ramadaan iyo faa'iidooyinka markaa uu inoo leeyahay. maalin kasta oo ka mida bisha barakeysan ee ramadaan waxaad daawan doontaan muuqaal gaar ah oo ku sumadaysan maalintaasi, xambaarsanna darsi muhiim ah oo aad wax badan ka faa'iidaysan doontaan hadduu allaha uu dal raalli ka noqdo. brogaraamadeenu waxay diiradda saari doonaan ramadaanku iyo sida ugu habboon ee aan uga faa'iidaysan karno. fadlan sheergarey oo la garay muuqaalkan si markaa uu u gaaro saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaadoo kale, isla markaana ay uga faa'iidaystaan macluumaadka aan halkan ku soo bandhigno. haddii aad lala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waad ku mahadsan tahay daawade daawashada muuqaalkaaga. mahadsanid. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko.